shalay oo ay taariikhdu ahayd 12 bisha 2025 taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga Cabdicaziz oo fulinaya amar ka soo baxay maxkamadda ayaa waxa soo weeraray kooxaha abaabulan oo dana gaar ah leh oo raba si sharci darro inay ku dhistaan dhul. ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay u hoggaansameen amarka waxaana soo saaray maxkamadda go'aan maxkamadeed ayayna fulinayeen. labadii dhinac ay saasay dhinac ka mid ah qaar soo abaabulay ayaa waxay isku dayeen si sharci darro dhulkii maxkamadda ay hakisay inay ku dhistaan. dhammaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan la wadaagaynaa in sareynta sharciga uu muqaddas tahay shakhsi kastana uu ka sareeyo sharciga. awaamirta ka soo bada maxkamadaha wuxuu u xilsaaran yahay booliiska Soomaaliyeed inuu fuliyo. Cabdicaziz gaar ahaan waaxda neera waxaa lagu hakiyay oo hakad la saaray warqad maxkamadeedna lagu hakiyay dhismaha goobtaas. dhammaan cid walba oo rabta inay wax dhistana go'aan maxkamadeed ay soo qaadanaysaa maxkamadda amarka soo bixinaysa. dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leenahay qasaaro wixii goobtaas ka dhacay waxaa mas'uuliyadda dusha saaran doona cid kasta soo abaabushay. ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay gacanta ku hayaan maxaabiis gaaraysa ilaa 3 7 ay ahaayeen 4 ka mid ah baxsatay oo ilaa hadda la daba jooga. kiiskana baaris ayaa socota. waxaa jira dad soo abaabulay kiiskaas oo lacag ku bixiyay oo ciidankan ama dadka maleeshiyaadka hubkan adeegsanayay soo abaabulay dabada ka soo riixay. looga hari maayo in maxaabiistan la soo qabto ee maxkamad la geeyo ee waa li soo diray dhahan, laakiin waxaan salka geyn doonaa cid walba ay soo adeegsatay maleeshiyaadkan hubka u soo dhiibtay goobteedan loogu tagi doona. baaristana waa ay socotaa. operationkina weli waa uu socdaa. 4 eedaysanee maqan iyo dadka soo diray dhammaantoodba ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay diyaar u inay soo aruuriyaan isugu keenan cadaaladana horgeeyaan. dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay ma joogno xilligii la laasanaa sharciga inuu shaqeeyo. xilligii ummadda Soomaaliyeed ee sharci la'aanta ahayd maanta waxaynu taaganahay 2025 waxaan leenahay maxkamado waxaan leenahay saldhig booliis dacwadii waa la dedejiyay. qof walbo eedaysana arka oo dhibana ah waa inuu u dacwoodaa saldhigga booliiska, waa inuu u dacwoodaa maxkamadda degmada, waa inuu u dacwoodaa maxkamadda gobolka. cid laga hor taagan yahay in xirlaalinta ay u dacwootaana ma jirto. dhammaan bulshada Soomaaliyeed adoona far nuuxinin haddii aad dhib qabto dhul laga haysto dhul aad leedahay sharci darro kaaga maqan intaba waxaad tagi kartaa maxkamadda. laakiin lamana ogolaanayo in si sharci darro aad dhul ku dhisato hadday dawladdu leedahay haddii qof shacab uu leeyahay. waxaan faraynaa bulshada Soomaaliyeed oo hogaansanaanta sharciga waa muhiim. waxaynu ku wada noolaan karnaa sharciga. ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo dhammaan laamaha amniga waxay diyaar u yihiin fulinta awaamirta maxkamadda ka soo baxda. cadaaladuna waa goobta ugu sareysa maxkamadda. qof walba muwaadin Soomaaliyeed albaabadeeda uu furan yahay oo tagi kara galkeedana uu furan kara mana la aqbali doono. waaxda neera ee Cabdicaziz waxaa lagu joojiyay warqad maxkamadeed waxaana lagu ogolaan doonaa warqad maxkamadeed insha Allah.